miidiyaha Soomaaliya waxaan saad ka warhaysaan waxaa maanta halkan lagu qabtay shir taariikhi ah oo ay ka soo qayb galeen 11 dal oo ka mid ah 14 dal oo ururka iskaashiga islaamka ugu qaabilsan taakuleynta dadka iyo dalka Soomaaliya shirka waxaa furay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad loo bogay oo wufuudi ay aad u amaaneen markuu tagay ka bacdi ka jeediyay shirka taasoo uga waramay horumarka Soomaaliya ay gaartay iyo taageerada ay ka filayso dalalka islaamka shirku si fiican ayuu u dhacay waxaa shirka shir gudoomiye ka ahaa dowladda Qatar oo ka yimid wasiir dowlahooda arrimaha dibadda waxaa dowladda Qatar oo gudoomiye u ah guddiga kan loo yaqaano kooxda xiriirka Soomaaliya ee dalalka iskaashiga ururka iskaashiga dalalka islaamka Qatar waxay kaloo ahayd dalkii suurtageliyay shirkan oo kaalmo dhaqaale oo shirka lagu qabtay ayay soo direen waxaa sidoo kale too yimid wasiir dowlaha dalka Suudaan oo ka mid ah madaxdii ugu waaweynay shirka ka soo qayb gala waxaa ka soo qayb galay isaguna nina kaaliyaha ama ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Kuwait waxaa sidoo kale yimid kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda Masar iyo dalal badan oo muddo aynaan ka arkin dad mathalaya oo Soomaaliya yimaada sida dalalka ay ka mid ka yihiin Malaysia Pakistan iyo Azerbaijan waxaa sidoo kale joogay dalal ay ka mid yihiin Sacuudiga Imaaraadka Yemen walaalaheen Djibouti oo safiirkooda saaxiibkeeni uu ka joogay dabcan ururka iskaashiga dalalka islaamka ah waxaa ka joogay wafdi ballaaran oo hogaaminayo kaaliyaha xogayaha guud iyo dad la socdo xakaynta ka tirsan oo tiradoodu ay 20 ku dhawey shirku si fiican ayuu u socday martidu waxay ka mahadnaqeen soo dhaweyntii fiicneyd loo fidiyay iyo maaragtay marxabeyntii ummadda Soomaaliyeed ay u muujisay jacaylkii iyo qadarintii ay u muujiyeen ayay aad uga mahadnaqeen wufuudi ilaa shalayta ayay imaanayeen qaarna maanta yimaadeen shirku wuxuu ku soo gabagaboobay inuu ka soo baxo communique ama dhambaal nuxurkiisu uu ahaa inuu adkeeyo dalalka xubnaha ka ah ururka islaamku ururka iskaashiga islaamku inay adkeeyaan midnimada dalka Soomaaliyeed iyo qarannimada dadka Soomaaliyeed waxay kaloo uu shirku tilmaamay ama uu go'aamiyey uu ku taliyay in Soomaaliya la garab istaago oo dhan kasta dhanka horumarka hay'adihiisa dawliga ah dhanka gargaarka bani aadamnimo ayaa isagana maxaa la yiraahdaa dalalku ay isku booriyeen inay ka taageeraan Soomaaliya wuxuu shirku qiray
horumarka dawladda xukuumadda Soomaaliyeed ay ka gaartay dhan kasta ha noqoto dhanka nabadgelyada, dhanka dhaqaalaha, dhanka siyaasadda iyo dhanka isu soo dhaweynta iyo kalsooni abuurka dadka Soomaaliyeed dhexdooda. iyo sidoo kale wuxuu shirku tilmaamay oo soo dhaweeyay soo dhawaanshaha ka socda geerka Afrika iyo horumarka ka socda dalalka geeska Afrika ay isu soo dhawaanaya iyo iskaashigooda. shirku wuxuu sheegay in xafiis halka loo yaqaan xafiiska horumarinta markii hore loo yaqaan xafiiska gargaarka ka bacdina loo bixiyay xafiiska horumarinta inuu hadda noqday xafiis buuxa oo ay ururka dalalka islaamka oo saldhigiisu uu yahay Jedda in ay maxaa la yiraahdaa in xafiiskaas buuxa Soomaaliya ka hirgalo. shirku wuxuu u mahadnaqay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida soo dhaweynta fiican xukuumadda madaxweynaha u yahay ay soo dhaweysay. waxay aad ugu mahadnaqeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre hadalkii fiicnaa oo meesha ka jeediyay oo rajada xambaarsanaa iyo sidii uu soo dhaweeyay iyo fuudda qaarkood sidii uu la sheekaystay. waxay aad u soo dhaweeyeen hoggaanka cusub oo Soomaaliya iyo xukuumadda iyo sida dadaalka ay wado sidii dalka horumarkiisu u sii kor loogu sii qaadi lahaa dhan kasta. bayaanku ama hadalka communiquegu wuxuu u mahadnaqay dalalka oo dhan kaalmada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya ay weligood la garab taagnaayeen. wuxuu gaar ahaan u tilmaamay dalalka Turkiga, Saudi Arabia, Qatar, Imaaraadka, Suudaan iyo Djibouti oo aad u taageera dadka iyo dalka Soomaaliyeed. marka shirku ugu dambeystii aan sheegay wuxuu u mahadnaqay dadka Soomaaliyeed sidii fiicnaa loo soo dhaweeyay. communiquega ama hadalka ka soo baxay shirka qodobada ugu muhiimsan sidaas ayay ahaayeen. waa mahadsantihiin. Urtida Manta.